guddiga wacyigelinta ka hortagga cudurka coronavirus ayaa waxay maanta kulan ay ku qaateen xarunta aqalka dowladda hoose xamar waxaana ay iska xog wareyseen labadii toddobaad waxyaabihii u qabsoomay waxaana kulanka goobjoog ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish iyo ku-xigeenadiisa wasiirka warfaafinta ahna gudoomiyaha guddiga wacyigelinta cudurka coronavirus Maxamed Cabdi Xayir Maareey kulanka oo ay warbaahinta dibadjoog ay ka ahayd ayaa marka uu soo ilaaday waxa faahfaahin ka bixiyay gudoomiyaha guddiga wacyigelinta ee cudurka coronavirus ahna wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareey wasiirada iyo madaxda halkan fadhida maanta waxaa lagu qorsheeyay labadii week la soo dhaafay sidii ay noogu qabsoontay hawshii wacyigelintu iyo wiigaga kale aanu doonayno in hadda bilowno sidii loo dardargelin lahaa hawlaha wacyigelinta iyo istaageeridda bulshada Soomaaliyeed runtii guddi ahaan waxaanu aad iyo aad ugu faraxsanahay shaqada la qabtay iyo sida ummadda Soomaaliyeed looga wacyigeliyay khatarta xanuunkan uu leeyahay waxaanu ugu baaqaynaa runtii shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan magaalada madaxda dalka Muqdisho iyo dhammaan gobolada dalka inay ka digtoonaadaan xanuunka oo ay qaataan talooyinka wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirtu ay siinayso si xanuunkan Soomaaliya uu looga ciribtiro oo aynu noqon dalalka ay ku hadho maadaama adduunku hadda ku tartamayo dal waliba inuu adeegii bulshada dib u soo celiyo dhaqdhaqaaqii adduunka uu la lahaa iyo ganacsigii uu la lahaa uu dib u soo celiyo dal waliba uu doonayo dalkiisu inuu noqdo ka ugu horeeya ka soo kabta xanuunka coronavirus sidoo kale waad la socotaan meelo badan oo dalka ah magaalada Muqdisho ay ka mid tahay gudoomiyaha iyo tiimkiisu hadda nala wadaageen waxa ka dhacay fatahaado roobabku keeneen ama daadad oo iyaga laftigoodu dad Soomaaliyeed oo dan yara dhibaato u geystay marka waxaanu ku dhiirigelinaynaa dadka Soomaaliyeed ganacsatada Soomaaliyeed inay isu gurmadaan inay qaataan oo talooyinka madaxda u arkaan dawladoodu waxa ay ka shaqeynayso saacad kasta loo fadhiyo halkan